السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته walaalaha garbahayga oo ku soo dhawaada weelkii dunida iyo waxtarkii bulshada aniga waxaan ahay Xafsa halka aad naga daawaneysana waa Xafsa channel ala barnaamijkan waxaan soo gudbisay islaaniga walaashin Xafsa soo dhawaada meel kasta ay joogtaan daafaca caalamka iyo gobolada Soomaaliya waxaan rajeynayaa in caafimaad qabtaan ani waa fiicana alxamdulillah waxa inoo soo socday kitaabkeena imtixaanaha ahaa ee la magac baxay bara boqol xadiis saasi yeeshee intaan u gudagelin darsigeena maanta ugu horeen hadii ay tahay markuu ugu horeysay hadii laga soo booqtay please subscribe saar hadii aad hornool joogtaan like share labadaas asxaabtaada nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay waxaad naftaada jeceshahay la jeclo walaalkaaga ku soo dhawaada maanta muuqaal cusub iyo darsigeennii 87 بسم الله عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاهم رواه البخاري nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee wuxuu dhahay man qaraa bil aayatayn min aakhir suurati al-baqarati qofkii akhristaa labada aayadood ee ugu dambeeyay suuratul baqara fi laylatin habeenkii kafataahu way kaafinaysaa oo waxay ka kaafinaysaa qofkaas habeenkii cibaado walbo Allah subhanahu wa ta'ala uu ka doonayay oo inuu sameeyo ay ugu filan tahay ay ka kaafinaysaa culimada macna badan ayay ku fasireen waxa kale oo lagu sheegay qofka haduu akhriyo labadaas aayadood habeenkii waxay ka dhigan tahay inuu Ilaahay ka celin doono amba ka gaashaamayo wax walba oo shar qofkaas ku soo socda yacni inay ka kaafinayso ay ugu filan tahay inuu akhriyo adkaaraha iyo wax kasto labadaas aayadood inay ugu filan tahay habeenkaas in loo soo diraayo malaa'ik oo wax kasto oo qofkaas yacni ilaalinayso inuu Ilaahay u soo diraayo waxa la dhahay waxay ka kaafinaysaa yacni qofkaas haduu akhriyo labadaas aayadood cibaado walba Ilaahay uu ku doonayo inay ugu filan tahay inuu akhriyo ama waxa lagu sheegay in qofkaas wax walba oo shar ku soo socda inay ugu filan tahay ay ka kaafinayso insha Allah waxaan rajeynayaa inaa wax badan fahanteen xadiiskeeni maanta sidoo kale waan kaaga mahadcelinayaa qaabka quruxda badan ee aad noola socotid markasto soo dhawaada meel kasto aad joogtiin daafaca caalamka iyo gobolada Soomaaliyaba waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkayaga sidoo kale hadii aad dhameysatay ha ilaabin inaad like saarto sidoo kale aad u share gareyso hadaa aanu ku cusub tahay gambaleelka furo subscribe saar gambaleelka furo si uu ku soo gaaro muuqaal walbo aan soo geliyay guud ahaan halkan ayaa ku soo gabagabeynayaa muuqaalkayaga maanta waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkayaga sidoo kale mahadsan tahay subscribe saartay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh